haween ahaan aad baan u taageersanahay maxamed cabdirasaaq oo ah nin dhalinyaro ah oo isu soo taagay musharaxa madaxweynaha Soomaaliya sababta aan ku taageernana waxa waaye asagoo ah nin dhalinyaro aqoon-yahan ah kana bilaabay dalka gudihiisa campaign meeshay dibadda ka bilaabi jireen la kulmay haween fara badan waa ku soo dhaweynaynaa Cabdirasaaq Maxamuud ayaa waxa uu yahay musharaxa kaliya oo lalihiisa doorasho ka wada guud ahaan dalka isaga oo meelo badan oo dalka booqday waxa uuna sheegay in safarkiisa dalka uu sii taagan qabashada xilka madaxtinimada Soomaaliya sanadka 2016 ayaa maanta magaalada Beedhabo xarunta gobolka Baay waxa lagu soo dhaweeyay Maxamed Cabdirasaaq oo kamid ah musharaxiinta ku dhawaaqay inay u taagan yihiin qabashada xilka madaxweynenimada Soomaaliya 2016 musharax Maxamed Cabdirasaaq xaflad lagu soo dhaweynayay sidoo kalena lagu taageerayay ayaa maanta waxa loogu dhigay hotel Bakene magaalada Beedhabo taasoo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed maamulka degmada Beedhabo ee kan gobolka Baay waxa madaxweynenimo ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo marti sharaf kale oo badan ugu horeyn magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Highland waxa maanta lagu soo dhaweeyay musharax Maxamed Cabdirasaaq kaasi oo u taagan qabashada hoggaanka Soomaaliya wuxuuna kulan la qaatay odayaashii waxgaradka magaalada Dhahar Ciise Maxamuud Ciise ayaa warkan ka soo diray magaalada Dhahar soo dhaweyntan oo ahayd mid ay ka soo qayb galeen dhammaan ururada bulshada uqaal waxgarada qaybaha kala duwan ee sportska hooyooyinka iyo dadweyne aad u tiro badan ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Dhahar taas oo lagu soo dhaweynayay musharaxa madaxweyne ee Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq kadib soo dhaweynta musharaxa iyo wafdiga hogaaminayay ayaa waxaa loo soo gudbiyay hoolka weyn ee degmada Dhahar halkaas oo musharaxu shirar kala duwan kala qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada shacabkaaga iyo dadkaaga waxaan ka sugeynaa waxaan kugu ducaynaa in Ilaahay kula qabto federal ha noqoto waa markii ugu horeysay mid kamid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya 2016 ayaa maanta lagu soo dhaweeyay magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag isagoo kulan la qaatay waxgaradka iyo simada magaaladaasi faafaynta warkan waxa magaalada Baran nooga soo diray wariyaheena Maxamed Axmed Cagmadhige musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud oo tartamaya xilka madaxweynaha dalka Soomaaliya 2016 ayaa waxa lagu soo dhaweeyay magaalada Baran maamulka degmada Baran iyo qaar kamid ah bulshada magaalada Baran ayaa musharaxa waxay kaga hortageen deegaanka Xubeero oo dhanka bari qiyaastii 17 kiiloomitir kaga beegan magaalada Baran ee gobolka Sanaag musharax Maxamed Cabdirasaaq ayaa mid waxa uu qacan qaaday dadweynaha soo dhaweeyay soo dhaweynta kadib ayaa waxa musharax iyo wafdigu hogaaminayo loo soo galbiyay gudaha magaalada Baran waxaana musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamed iyo xubnaha safarka ku wehelinaya la dejiyay hotelka Sanaag intaasi kadib ayaa waxa saxaafada la hadlay musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud duqa degmada Baran Cabdirasaaq Axmed Ciise iyo qaar kamid ah dadweynaha ka soo qayb galay Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abu Bakar waxa uu taagan yahay xilka musharaxnimo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya marka la gaaro sanada 2016 soo dhaweyn ballaaran ayaa lagu sameeyay duleedka magaalada Galkacyo waxaan halkaas ugu hortagay dadweyne aad u fara badan intaasi kadib munaasabadu ku qabtay gudaha magaalada Galkacyo ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka iyo waliba mas'uuliyiinta kala duwan ee magaalada Galkacyo Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abu Bakar musharaxa xilka madaxweyne sanada 2016 dowladda Soomaaliya musharax Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abu Bakar oo u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya ayaa magaalada Garowe ku qabtay xaflad ballaaran oo ku shaacinayo musharaxnimadiisa kulankaas oo lagu qabtay jaamacadda BSU waxa ka soo qayb galay qaar kamid ah odayaasha dhaqanka aqoon-yahano dhalinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada Garowe iyo qaybaha kale ee bulshada ku nool caasimadda Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abu Bakar ayaa ka sheekay taariikhda waxqabadkiisa